بسم الله. عيد مبارك dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo bahweynta bangiyada waxaan idin leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr. Allah inaga aqbalo acmaashii wanaagsaneed bishii barakeysneed ee Ramadaan, soonka iyo qiyaamka iyo salaatu leylkii iyo sadaqadii dhammaan Ilaahay naga aqbalo. Allahna nagu daro dadka laga xoreeyo naarta. maalmaha ciida oo ah maalmo sidooda u barakeysan oo maalmo farxadeed ah, waxaa muhiim ah in acmaashii wanaagsaneed naftirkeeda aad loo sii wado. ay markaan ugu muhiimsan tahay arrimaha qaraabo xiriirinta oo la soo booqdo dadkii qaraabada ahaa haddii waalidkiina kuma sii jiraba. waxaa kaloo muhiim ah in dadka masaakiinta ah maalmaha aad looga farxiyo oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu aad iyo aad u booriyay maalmaha in sadaqada la badiyo, dadka farxadda laga qayb geliyo, taasoo muhiim u ah in bulshado dhan farxaddaas ciida ay ka wada qayb qaadato. waxaanan aad u rajeynayaa in insha Allah tacaala aad looga wada qayb qaadan doono. ururka bangiyada Soomaaliyeed waxa uu shaacinayaa in shaqada lagu soo noqon doono maalinta Axadda ah oo maalinta Sabtiga insha Allah tacaala ay bangiyadu fasax ay yihiin. sidoo kale waxaan u rajeynayaa saraakiisha iyo madaxda iyo shaqaalaha bangiyada ciid wanaagsan, ciid farxad leh, bashbash iyo barwaaqo. adinka iyo qoysaskiinaba waxaan leeyahay farxad ku ciida. insha Allah Ilaahay idankiisa sanadkan sanadkiisa kale Allah nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo amni Allah nagu gaarsiiyo. kullu caam wa antum bikhayr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.